Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sixiroolaha ugu horeeyay adduunka waa kuma? Ma ogtahay in uu yahay sixirkii koowaad ee ka dhaca dhulka? Waa Namruud oo ah boqorkii ugu horeeyay ee taaj madaxa loo saaro oo naftiisana u hibeeyay shaydaanka si uu u barto sixirka. Sida uu Antikristos sheegay, waxaa jira boqor la yiraahdo Namruud, dhanna waxaa laga yiraahdaa Zahaag, qaar kalena waxay yiraahdaan magaciisa Sorostar. Waxaa jira magacyo kale oo ay u yaqaaniin taariikhyahanada. Muhiimaddu waxay tahay daadkii Nuux kadib ilbaxnimadii Baabil way kobacday oo waxaa xukumayay Kuush oo uu awoow u ahaa Nabi Nuux nabadgelyo korkiisa ahaatee. Wuxuuna dhalay wiil la yiraahdo Namruud oo doonayay in uu adduunka ku xukumo sixir. Markaa wuxuu aadi jiray buuraha dushooda si uu sixir ugu barto shaydaanka. Laakiin ka hor intaanu la barin, Ibliis wuxuu Namruud ka codsaday inuu naftiisa u iibiyo, isaga oo ku bedelanayo awooddii sixir. Sidaas daraaddeed Namruud wuu aqbalay codsigii, wuxuuna bilaabay inuu barto sixirka. Kadib markii uu bartay sixirka, Namruud wuxuu galay dembiyadii ugu horeeyay. Sidaa ayuu ku dilay aabbihii Kuush oo Nabi Nuux awoowaha u ahaa. Wuxuuna bilaabay inuu xukumo Baabil, wuxuuna xirtay taajkii. Fikradda taajka waxay ka muuqatay mid ka mid ah boqoradii jinka. Sidaas daraaddeed isagu wuxuu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee xirta taajka. Wuxuuna ahaa mid xoog badan oo aan lahayn naxariis. Runtii waxay dhiseen munaaraddii ugu weyneed, taasi oo noqotay mucjisooyinkii ugu horeysay adduunka. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu riyooday Namruud isaga oo dhabta xaaskiisa ku jiifa. Kadibna waa uu sallay oo waa uu soo booday. Isagoo ka argagaxsan riyadii ayaa la isugu yeeray wadaadadii fasirayay riyada. Waxayna ugu fasireen in uu dhalan doono wiil oo uu ku halaagsami doono wiilkaas gacantiisa. Wiilkaana wuxuu noqon doonaa Nabi Ibraahim. Namruud waxa uu amray askartiisa, wuxuuna ku amray ilmo kasta oo dhasha in la dilo. Laakiin Nabi Ibraahim hooyadiis waxay ku guuleysatay inay qariso wiilkeeda. Halkaanna waxaa ka bilaabmi doona sheekadii Nabi Ibraahim calayhi salaatu wassalaam. Namruudkani waa kii Nabi Ibraahim ku tuuray dabka markuu uu jijibiyey sanamyadii ay caabudayeen. Dabkuna wuxuu Alle ka dhigay oo kaga dhigay Nabi Ibraahim mid aad u qabow. Namruudkii weynaa oo xoogga badnaa, boqornimada sheeganayay, waxaa dilay midka ugu yar uguna daciifsan khalqiga, Eebbe, waana kaneeco. Markaan soo koobo inta aan ka aqriyay Namruud, runtii waxaa jira aragtiyo fara badan oo aan xad lahayn oo ku saabsan sixirkii ugu horeeyay. Inta badanna waxaan arkay Namruud, qaarna Fircoon. Adiga bal ka waran daawadaha qaaliga ahow, aragtidaada iyo ra'yigaaga.